kaalmo raashin ah oo tiradiisu ay gaarayso in ka badan 360 jawaan ayaa Soomaalida ku nool dalka Uganda ay maanta guddoonsiiyeen wasaaradda arrimaha masiibooyinka dalka Uganda si looga qayb qaato barnaamijka wax ka qabashada dhibaato dhinaca bini'aadanimada ah oo ka dhacday galbeedka dalka Uganda magaalada Kasese. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Xuseen Abuukar Xasan Xuseen Garweyne oo kulanka raashinka lagu guddoonsiinayay wasaaradda arrimaha masiibooyinka dalka Uganda ka hadlay ayaa sheegay in Soomaalidu ay dadaal dheer u gashay bal in ay ka qayb qaadato wax ka qabashada dhibaatada ka dhacday magaalada Kasese oo roob ka da'ay ay keeneen in ay barakac ku dhaco in ka badan 3,000 oo qoys isla markaasna ay dhimasho la soo gudboonaato dad tiradoodu aan wali la cadadin ka dhacday galbeedka wadanka Kasese roobabkii iyo buurihii wixii ka soo daayeen oo talagalnay marka waxaana dawladda Uganda iyo shacabkeedaba aan leenahay arrintaanaytu waa arrintii ugu horeysay waxaana soo socda arrimo kale iyo rag badan oo ka qayb qaadan doono in ma aragtay oo ay tagaan goobaha shaqada sida hadda wasiirku uu ballan qaaday marka waan mahadsantiin wasiirka arrimaha masiibooyinka dalka Uganda ee Kuwera Musa oo isna kulankaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kaalmada raashinka ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ay keeneen xarunta wasaaradda arrimaha masiibooyinka dalka Uganda waxaanu sheegay in tani ay tahay kaalmadii ugu horeysay ee ka timaada mid ka mid ah jaaliyadaha ku nool dalka Uganda isaga oo ammaanay Soomaalidu in ay yihiin dad ku wanaagsan xagga iskaashiga iyo wax wada qabsiga iyo iskaalmeynta. But the rains washed off most of their food crops apart from the destruction that was caused in the houses. As government, we are doing everything possible to support them. I came back last night with a number of partners who had gone to see how to help. But I must report here that the Somali community in Uganda is the first to respond to this as a community. dhinaca kale dadka ka hadla kulankaas waxaa ku jira xubno uu ka mid yahay Axmed Faarax Ugaas iyo Xaashi Xiirey iyo Safiya Xaaji Mire oo dhammaantood sheegay inay isku soo dabaridayaan kaalmo intaa ka ballaaran oo ay ku jiraan dhar iyo qalabka maacuunta waxaana lagu wadaa in Soomaalidu ay sidoo kale u diraan xubno kalkaaliyaal caafimaad ah oo ka qayb qaata badbaadinta dadka roobabka iyo daadadku ay ku haystaan magaalada Kasese ee gobolka galbeed ee dalka Uganda. naga tabarteenu inta la egtay 360 jawaan waa wax aad u yar waxa aan doonayna ma ahan laakiin karaankeenay noqotay insha Allah waana u dadaalayna waxaan leenahay ayagana masiibada Allah ka qaado dhalinyaro badan oo volunteerna waxaan rabnaa inaan u dirno insha Allah taala si ay uga qayb qaataan gurmadka meeshan waxaan isugu keenay waxa weeye waa kaalmo inkastoo ay og tahay oo dawladda Uganda ka warqabto ama caalamku ka warqabo dadka Uganda jooga inay dad qaxootiga yihiin haddana Soomaalidu waa dad deeqsinimo salka ku haya magacayga waxa la yiraahdaa Safiya Mire Xaaji anigoo ka mid ah hooyooyinka degan magaalada Kampala kan mid ah member ka tirsan Somali community waxaan aad ugu xumnahay dhibaatooyinka ka dhacay Kasese anagoo ah dad dhibaataysan haddana garanay inaan u sii orodno ama aan wax u qabanno dad walaayaheena gacanta noo geystay inay nagu hayaan wadankooda anagoo nabada masiibadan ay ku soo baxday Soomaalidu ayaa ah mid ay dowladda Uganda muddo hal toddobaad ah ay la lagdamaysay iyadoo ay dad badan dhibaato ka soo gaartay kuwaas oo jira galbeedka dalka Uganda. Soomaalida ayaa waxay tahay mid ugu horeysay ee ay dhinaca bini'aadanimada uga qayb galaan wax ka qabashada masiibada dhacday wadan ay ku nool yihiin oo ay ka jirto dalka Uganda. Ismaan Faarax telefishinka qaranka Kampala.